akhbaar aad u farxad badan ayaad ka daawan doontiin muuqaalkan fadlan dhammaystiro si aad ula socoto hay'adda IOMta u qaabilsan dib u dejinta iyo caafimaadka ayaa madaxa ugu sareeya ee qaybta immigrationka ama socdaalka ayaa akhbaar farxad badan u sheegay dadkii falaagis waayey oo muddo badan oo hadda caafimaadka hata la soo celiyey ayaa ballan qaaday in isla sanadka cusub bisha koowaad caafimaad la qaadi doono falaayo fara badan ay badin doonaan muuqaalkaas ayaan si fiican u garafayn doonaa iyo wararkii ugu dambeeyay dib u dejinta insha Allah haddii aad markii ugu horeysay ana soo booqatay muuqaalkan fadlan like noo saar muuqaalkana subscribe noo saar gambaleelka furo si aad joogto hesho warbixinadeena taxanaha ay soo dhigno dib u dejinta bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtaan jeclahay meel walba dunida ka joogtiin ku soo dhawaada maxamed daacad waa beejka sidoo kale walaalkiina maxamed daacad sidaad horaan ugu barteen arrimaha dib u dejinta iyo arrimaha qaxootiga inaan mar walba insha Allah niisoo dorofeeyo aan niisoo dhigo insha Allah idinkan aad iyo aad ayaan igu mahadcelinayaa si fiican aad ku dheerantiin ama ku xirantiin channelka insha Allah inkastoo maalmaha u dambeysay dib u dhac ku yimid xajiina ah muuqaalada like-ta waan ugu yareeraysiin sidoo kale muuqaaladii aad sheegiran jirteen asxaabtii oo soo dhaweyn ayuu ka yimid insha Allah haddana waxaan rajayn doonaa insha Allah inuu muuqaalka dad badan gaaro si aan idinkana mar walba warbixin aan isoo dhigno inuu dhiirigeliyo like-ta iyo sheegareenta muuqaalka insha Allah haddii aan ku bilaabo wararkii ugu dambeeyay dib u dejinta insha Allah akhbaar aad u farxad badan ayaa jirto sidoo kale shaqo fiican ayaa ka socota Lidab gaar ahaan qoladan IOMta ayaa shaqo joogto u waday iyo qoladan RRC Africa isbuucyadii u dambeysay isbuuc taariikh 20 iyo isbuucyadii u dambeysay caafimaad aad u fara badan ayaa loo shaqeynayay sidoo kale caafimaad dadka dhacay ayaa dib loo soo celiyay oo loo cusboonaysiinayay dad cusub bishii 8aad iyo bishii 9aad soo maray caafimaad soo maray CISta ama bishii 8aad iyo bishii 9aad dadkii soo maray CISta Nairobi qayb kamid ayaa hataa caafimaadkan hadda ku jiray caafimaadkan aad iyo aad ayaa loo bogsiinayaa sida horaan aan ka baranay IOMta laakiin sanadkan aad iyo aad ayaa u shaqeynaysaa maadaama laga carraayo Donald Trump inuu soo laabto ayaa laga cabsi qabaa marka dowladda Mareykanka waxaa loo fasaxay maxkamadda sare waxay fasaxday in intii madax cusub la dooran iyo qorshe cusub la yimaanay ka hor waa inay boobsiyaan kiisaska ay hadda gacanta ku hayaan ee bandhigka ah inay boobsiyaan marka qof alla qofkii oo calaf Ilaahay ugu daro inay qaadaan ay rabaan inay boobsiinayaan waxay leeyihiin dad badan ayaan u shaqeyn doonaa intii la gaarin doorashada xigta ee bishii 8aad oo loo dareeri doono ilaa bishii 12aad inta dhicin ka hor ayaa waxay leeyihiin dad badan ayaan qaadi doonaa dadkaasna in qofku noqdo nasiibkiisa aan hebel kala ma garanayno dadka isku mid ayay noo wada jiina leeyihiin marka qofkii Ilaahay calafkooda ugu diro ayaan qaadanaa sidoo kale akhbaar oo farxad badan oo ku soo yeeray laanta socdaalka ee IOMta immigrationka qaybteeda ugu sareysay ninka ugu sareeyay madax ah ayaa asayna wuxuu sheegay isbuucii dambeysay dad oo caafimaadka maray uu la kulmay wuxuu dhahay isla sanadka cusub bisha koowaad wixii ka bilowdo caafimaadka loo shaqeyn doono waa la yareyn doonaa balse waxaa la badin doonaa falaayada haddan oo shakhsiyada oo wax yar aan qaadayno ayaa la saddex jibaar ayaa falaay laga dhigi doonaa falaayo badan ayaa gacanta ku haynaa oo kiisaskooda oo in loo shaqeeyo la rabo sanadka cusub bisha koowaad ayaa dad badan la daadbureen sida hadda oo loo badan yahay caafimaadka aad loo marayo ayaan falaay ka dhigi doonaa falaagan sida u yar yahay ayaa caafimaadka laga dhigi doonaa waa la boobsiin doonaa idinkan insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ku jiri doontiin dadka dhan isku mid ah noo wada yihiin mid alla ninka Ilaahay israaqadiisa xagga uu qoro oo kaliya ayaan qaadaynaa oo anaga gacanteen wixii nasiibkiisa anaga gacanta kuma hayno qof walba wixii Ilaahay qoro nasiibkiisa uu helaya anaga insha Allah kiisas badan ayaa haynaa nin alla ilaahay Ilaahay waa calfane waan qaadi doonaa waan la geyn doonaa haddii xagga uu qoran tahay oo buu qoray cid ka reebaysa malaha maantana ku hayo dhahay dadka aad ayuu si fiican ayuu hadlay si fiican ayuu niyad u dhisay marka sidaas ayaa jirto warbixintaas ayaa niyaha akhbaarta aad u farxad badan dad badan ayaa falaay dhahay falaay ka soo hadal falaayga maxaa ku dhacay marka insha Allah waxaan rajeynayaa falaayo badan in irid laga qaadi doono bisha sanadka cusub 2024 Ilaahay inuu jaadsiiyo cimriga naga hayo marka insha Allah marka dadka asxaabta ku xiran Maxamed Daacad insha Allah waxaan u codsanaa muuqaalkan bilbaan hal gaarsiiyo si ay u daawdaan si ay isku sii diyaariyaan dadka falaayga suugayo sidoo kale isbuucyada u dambeysay dad badan ayaa laga xiriyay aalimo sida Mareykanka iyo Canada iyo Ingiriiska tabdiira laga xiriyay aalimo Mareykan ayaa u badnay sidoo kale caafimaadkii u dambeysay waxa marayay wadanka Mareykanka Ingiriiska Canada Sweden iyo Australia wadamo safaarado badan ayaa meesha joogo Sweden kamid ah Sweden dad caafimaad maray Canada Mareykanka Australia waa la isku wada jiray
inkastoo maraykanka aad ayuu maraykan ugu badan maraykan dhaqaaqaysa aad ay ugu socotaa sidoo kale kaakumana dad badan ayaa looga shaqeynaya siyaasta u dambeysay isla sida hadda dhaab looga shaqeeyo camal ayaa looga shaqeeyaa dadkii hore oo Donald Trump saameeyay ayagana way ugu jiraan kaakuma sidoo kale caafimaad ayaa jiro oo la marayo oo ayagana ay marayaan dad qaar kamid ah laakiin ma sha Allah shaqooyinka disaan ku sii wadaan qaxootiga wax joogi lahay malaha qaxootiga xariyaha dhaab disaan lagu sii shaqeyn lahay sanadkii hore oo shaqeyn lahayn sida hadda caafimaadka u marnay dad badan hadii falaayo ay ka dhigi lahayn qaxootiga wax joogi lahay malaha waa meesh faraaqay noqon lahayd marka insha Allah laakiin balse ogaada qof walba wuxuu rabaa inuu dibdajin helo si nolol cusub helo si mustaqbal wanaagsan u helo qurbaha wax loo ordayo waxa nolol cusub iyo mustaqbal cusub ayaa loo ordayaa maadaama saas loo ordayo haddana insha Allah nin walbana calafkaada ilaahay haduu kugu daro inaad baxdo qurbaha aado cid ka reebays malahan waxaad arkaysaa dad iska soo sanaa isla joogtay qaxootiga oo adiga aadan bixin laakiin dad marna gadaal yimaadeen oo 10 sano 15 sano joogeen ama dad gadaashaada ma hadda muula baqti dadku dambe hadda muula baqti imaanay qaar ka mid ah dib u dejinay la waxay joogan Mareykanka ay joogan Sweden ay joogan qaar Ingiriiska ay joogan marka waa calaf marka dadka waxa waasta kaliya dadka qaxootiga hore ee 92 oo kaliya la qaaday maya nin walba nasiibkaada calafkaada way insha Allah muuqaalka wuu soo gaabray insha Allah muuqaalka la soo sameyn doona insha Allah aad iyo aad ma stii like